sheekadan uu geeska Afrika maanta akhristayaashiisa la wadaagaya waxaa marsi horeysay ayaa lagu yiri uu sii daayay telefishinka dalka Masar ayaa lagu sheegay inay tahay run kana dhacday dalkaasi Masar waxaana qisadan u dhacday in uu soo daabacay wargeyska geeska Afrika gabadha ayaa ninkeedii ka geeriyooday iyadoo uur bilo yar ah waxa kale oo ay gabadhani hore u dhashay inaan afar jir ah markaas oo saygeedu geeriyooday markay gabadhani ku dhawaatay xilligii dhalmada ayaa aad u xanuunsatay nin weyn wadkii waa yaqaan ayaa lagu yiri wargeyskani markii ay aragtay in xaaladeedu culus tahay ayaa u tagtay walaalkeed waxaanay ka codsatay in haddii ay teedi noqoto uu dabadeed u daryeelo inanta iyo ilmaha ay dhali doonto haddii ay nabad ku timaado sidii ay filaysay ayaa u dhacday oo iyadoo dhakhtarkii ku guda jirtay isla markaasina lagu sameeyay qalliin lagu kala badbaadinayo ilmada iyo hooyaha ayaa ilmihii iyo balqaba uu dhashay isla markaasina hooyadii ay dhimatay markii aasi gabadhan laga soo noqday ayaa walaalkeed la sii dardaarantay soo qaaday labadii caruur ahaa waxaanu keenay gurigiisa laakiin waraanu filayn ayaaba gurigii kaga yimi xaaskiisa oo sida la sheegay waad u jeclaa ayaa u sii diyaar garowday iyadoo cala jiq ah ayaabay ku doodaysay inaan sinaba labadan caruur ah ay ugu noolaanaynin gurigan lagu qabo ama aniga ama iyaga ayaa noqday go-aankii gabadhani ninkan ujeedo uu ka lahaaba inta uu sugay gabaldhici ayaa markii gudcurkii habeenimo dhimay uu qaaday labadii caruur ahaa oo walaashii ka tagtay waxa uu qoday qabrigii walaashii uu maanta ku aasay markaasuu ku riday labadii caruur ahaa markii uu dhigay ilmihii dhashay ee uu damcay inanta roon uu waagdhigo ayaa ay oyday inantii oo cabsi qabta godkan madow ee abtigeed dhigayo inta waa musiiye ayaa uu ku yidhi abti hoo toygan qalabka caruurta lagu ciyaarto markaas oo walaalka uu ku ciyaarsii waana kugu soo noqonaya sii joog kadib inta wiilku ku daboolay ayaa dibadda uga soo baxay xabaal bilaashtii uu ciidda ku rogay maalintii labaad ayaa ninkii oo damiirka yar ee ku hadhay uu yar gubayaa uu soo maray qabriga oo caruurta ku aasay dushiisa waxa uu maqlay shanqadha toygii yaraa ee inanta u dhiibay isagoo argagaxsanaya oo ka tegay xabaashii maalintii xigtay ayaa ay naftu ku soo celisay bal hadda si uu u ogaado intii shalay oo kale ay dhacdo waxa ay dhacday oo isla codkii shalay ayaa mar kale maantana maqlay isagoo naxsan ayaanu mar kale ka tegey markan aad ayuu uga raagay oo muddo 15 dharaarood kadib ayaa uu ku soo noqday markii uu ku soo noqday ayaa uu maqlay isla dhawaaqii uu maalintii hore maqlayay markani waxa uu yiri malaha maskaxaan ayaanad fayoobeen oo waxaad maqlaysaa waa ismoodsiis oo inta uu dib ugu noqday magaalada ayuu dhowr qof soo kaxaystay oo xabaashi uu dulkeenay dhammaantoodna waxay maqleen codkii uu ninkani maqli jiray kadib markii ay dadkii uga warameen qisada xabaasha iyo caruurta uu hooyadood ka dabageeyay ayaa la go'aansaday in dib loo qodo arrinta mucjisada noqotay waxay ahayd markii iilkii loogu tagay labadii caruur ahaa oo nool dhinacoodana uu jiifo meydkii hooyadood dadkii waxay arrintii u sheegeen booliiska deegaanka garsoorka waxa kale oo la keenay caruurtan dhakhtar caafimaad markii inanta yar la weydiiyay sida ay ugu jireen qabriga waxa ay tidhi marka uu walaalkaygan dhashay ooyo ayaan soo ku ciyaarsiinayay toygan si sanqadhiisa aan ugu maaweeliyo laakiin markasta oo ooyo oo sanqadha toygan ka dhawaajiyay waxa soo kacaysay hooyaday oo naaska jaqsiinaysay marka uu dhargana dib ayay u jiifsanaysay markaan anigu gaajoodana adeer aanan garanayn oo xidhan dhar cad ayaa ii keeni jiray cuntada markaan dhargo ayaanu iga tegi jiray dhakhtarkii caruurtana baaritaankani ku sameeyay ayaa sheegay in xaaladooda caafimaad ayaad u fiican tahay